ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام geesinimo caqliyeed iyo mid qalbiyeed ba uu lahaa ama si kale haddaanu nidhaahno geesinimo macnawi iyo mid xisiya ama si kale haddaanu si idhaahdo weliba waxaa laga yaabaa innagu xogaagan gaalada halkan jooga inaynu dacwo u fidinno oo raganimo kala hortagna daaye in badan oo inaga mid inay salaadana xataa kala dhuumato istiraahdo ayaan lagu arkin adigoo tukanaya laakiin nebi maxamed waxaad qiyaastaa isagoo keligiiya oo dunidoo dhan keligii ka hor yimi qof qudhoo dunidoo dhan waajahaya qiyaas waan cidiba la socon xaafadda ciddii joogtay rumaysay dabeetana bulsho dhan oo mabaadi' kala haysata oo diimo kala haysata oo wax kala haysata waajahayoo leh waa qaldantiin waxaana caabudaysaana khayr kuma jiro ilaahay keligaa caabuda leh quluu laa ilaaha illa allah tuflixuu waa geesinimo inaad waajahdo adduunka keligaa geesinimo ka weyn maa jirta qof keligii mabda'iisa adduunka ku waajahaya oo ku dararsanoo kala hor yimi oo dhib oo dhammi ku soo gaadhay oo wasaa'isha bini aadamka lagu halleeyo oo dhan laysku daya in lagu halleeyo aliqraa xoolaannu ku siinaynaa madax baanu kaa dhigaynaa kan baanu kaa yeelaynaa waxan baanu kuu samaynaynaa maruu rabshadda naga jooji la leeyahay shajaacadiisa xisigaana taasi waa jur'adiisu ku lahaa iyo suu geesi ugu ahaa mabaadi'diisa wuxuu kaloo geesi ku ahaa caliy bn abi aalib baa wuxuu leeyahay kunnaa idaa xamiya alba'su waxmarat alxadaqu itaqayna birasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam famaa yakuunu axadun aqrabu ila alcaduwi minhu haddii dagaalku uu adkaada buu leeyahay dagaalku dirirtu markay kululaato nebigaanu ku gabban jirnay buu yidhi annaga waxaa noogu geesaysanaa uun ka nebiga xaggiisa ugu xiga waayo nebiga xagga dagaalka cadowga noogu xigayay buu leeyahay anas baa wuxuu leeyahay kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalih wasalam axsana الnaasi waashjaca الnaasi walaqad fazica ahlu اlmadiinati nebigu waxaa buu leeyahay dadka kii u dhaqan fiican oo u geesisan maalin baa qayla yeedhay magaalada madiine buu yidhi dabeetana dadkii way soo baxeen meeshii qayladu ka yeedhay col baa la moodayaa waa meel dagaal u taagan madiine gaala intaa weerar ku haysa markaa qayladii yeedhaba waxaa la isleeyahay haddaa cadowgii soo galay dabeetana dadkii markii ay soo baxeen ayuu nebigu ka hor yimi calayhi salaatu wasalaam abitalxe saxaabi la yidhaha farasuu leeyoo leedda ah oo aan waxba saarayn intuu xadhigga ka furay ayuu intaan dadba soo bixin buu nebigu baxay calayhi salaatu wasalaam dadku markay soo baxeenna isagoo meeshii ka soo noqday buu yimi oo leh lam turaacu isagoo leh waxbaa cabsanina dhibi ma jirto nebi maxamed baa dadka ka horeeyo intuu goobtii beledu ka yeedhay ama qayladu ka yeedhay tegey ka soo noqday oo saxaabadiisii ku leh ee dhibi ma jirto leh lam turaacu xadiiska bukhaari ku yaala ay laa takhaafu walaa tafzacuu buu leeyahay waxba ha cabsanina xasila markaynu eegno nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii oo dhan baa tilmaamaysa goob dagaal siduu u joogay halkan seefuu kaga dhacayeen ee dhabannada koofiyaddu ka gashay ee ilkaha badh laga dumiyey ee haddana u taagna bale saxaabadu albaraa ibnu caazib baa wuxuu leeyahay niman taabiciina waxay ku yidhaahdeen war ma nebigaa ka cararteen taabiciintu dee dagaaladii saxaabada iyo wixii mushkilad qabsatay may soo gaadhin qofkuna waxa aan soo gaadhin inta badan wuxuu is yidhahdaa wallahi haddaad joogi lahayd nin ragaad noqon lahayd laakiin saxaabo rag dhaamaa ma joogin meesha hase yeeshee taariikhdu dee waxay warinaysaa marar la jebiyey saxaabada dabeetana intay baraa ibnu caazib saxaabi la yidhahdo u yimaadeen oo ka mida saxaabada raggii ugu geesisanaa buu ka mid yahay futuuxaadka islaamiga waa raggii hogaaminayey ee goobta halkay ka galaan magac iyo maamuska ku lahaa ayay u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen akuntum wallitum yowma xunaynin ya abaa camaara maalintii xunayn ma nebiga ka yaacdeen bay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay inaanu nebi maxamed cararin